aan halkan maanta waxaan doonayaa inaan ka soo bandhigo aan color grading waxa la yidhaahdo amba color correcting aan isaga iyo waxaan doonayaa inaan caadi u sameyno maanta aan ku tuso sida loo color grade gareeyo sida loo sameeyo color correction. marka barnaamijka waxaan doonayaa inaan ku horeeyo color correcting first. muhiimaddu waxa weyn horta inaad sawirka saxdo intaanad color grade garayn aanad wax ka bedelin colorka. marka halkan waxaan ku haynaa 3 video oo kala duwan. That's the first one, kan waa ka labaad. marka saad u arkaysaan haddaan video koobaad ku noqdo male uu leeyahay color yar buu leeyahay, akhtar yar baad arkaysaa, caddaan iyo madow baad arkaysaa, laakiin kalarada kale inta badan dee aad uma soo baxayaan. ka labaad haddaad eegto waa colorless, way leedahay color laakiin aad uguma badna colorkaasi. waa ninkaa dee shaaha shubaya. ugu dambeyn waxaad haysaa video drone footage, drone lagu duubay, saad arkaysa waa magaalada banaankeeda ama duleedkeeda. marka waxay ku tusaysaa waxyaabo badan in 3 video horta ay ku kala duwan marka la habaynayo. So waxaan ku dhex jiray waxa weeyaan Premiere Pro, barnaamijka la yiraahdo Adobe Premiere Pro. Premiere Pro wuu wanaagsan yahay in loo isticmaalo overall editing kale, laakiin color grade marmarka qaarkood waa lagaga fiican yahay. laakiin maanta waxaan doonayaa horta in asaga isticmaalo sida wax loo color garayo. So haddaan ku bilaabayo marka koobaad, halkan aad tegaysaa Windows, waxaad tegaysaa Workspace, waxaad tegaysaa Color. haddaad doonaysid inaad just wax color garayso videogaagii kala waa dhamaystirtay, waxaad doonaysaa inaad color grading ama color correcting aad samayso. So color baan taabanayaa, wuu ii bedelayaa siday wax u yaalaan, and then halkan aan tegaya Lumetric Scope. hadhow baan idiin sheegi doonaa waxani wuxuu faa'iido leeyahay Lumetric Scope-ku, laakiin imika waxaan ku daynayaa colorka guud. So screenkaygana weynaysanayaa, waxaan tegayaa color basic correction. So halkaa aad ka bilaabaysaan waxaa la yidhaha basic correction. waxaanay ku tusaysaa in color gradingka intaanad color grade garayn ama aanad colorkii casaankii wixii aanad samayn aanad hagaajin, inaad marka hore correction samayso ood saxdo colorkii. color correction marka 2 midun baa loo saxayaa, ama inaad caddaan ku celiso ama madowgii madow ku celiso. That's it. There's no other color correction runtii aad samayn karto. marka waxaad isku dayaysaa marka koobaad inuu caddaankani shaarkan cad u xidhan waa caddaan asala yahay, caddaan rasiina, madowguna inuu madow yahay rasiina. labadaas marka hore isku daya in aan marka koobaad sameeyo. So haddaan weynaysto waxaan ku bilaabayaa color basic colorkaygii. Okay, so here waxaan hayaa temperature, tint, saturation, exposure, contrast, highlight, shadow, whites and blacks. intaasiba waxay kala tusaysaa dee waxyaabahan samayn doono, waana dee la arki doontaan waxyaabahan wax ka bedelo. So marka koobaad, first of all waxaan eegaya horta sawirkani ma huruud baa, ma buluug baa, ma caadi baa, samadii waa sidee. intaasan marka hore horta eegaya intaanan horta wax kale isku dayin. aniga horta sawirkani caadi buu leeyahay, ilama xuma runtii, laakiin waan hagaajin karnaa, color grade waan ku samayn karnaa. marka tusaale ahaan temperaturekan doonaya inaan saxo, temperaturekan marka koobaad doonaya inaan saxo. So as you can see, temperatureku waxa weeyaan dema kulayl baa ma qabow baa. marka haddii qabowdahay maalin dhaxana tahay wax kale waxaan leeyahay wadba qofkay ku xidhan tahay. hadday baraf tahay waxaan leeyahay okay, qabowga halka igu daa. hadday kulayl tahay waxaan leeyahay galab ama casar gaaban hadday tahay saa igu daa. saad u arkaysaana halkan haddaad u fiirsataan Lumetric Scope-ku wuu isbedelaya isagu. As you can see, bluegii baa kor u kacaya because videogii baa blue noqday. And then if you go to halka kulaylka amba haddaad tagto orangeka amba galabta hadday noqotona casaankii baa kor u kacaya. marka saad u arkaysaan muhiimaddu waxa weyn inay iswada leekaadaan. So again, haddaan 0 istaago way iswada leegyihiin. So that's why aanan runtii u taabanayn temperatureka. tintka isagu waxa weyn akhtar iyo wuxuu ka dhigayaa videogii purple. isaga laftirkiisu wax maanta u baahan inaan taabto maaha. So marka intaan ka imaado intaanan saturation ka taaban oo aan waxba ku samayn waxaan tagayaa black, so halka ugu hooseysa,
know, what I want to do is waxaan doonayaa madowgii inaan madowgiisa ku celiyo. So haddaan dhexda istaago boqolka geeyo waa adiga arkaya madowga siduu noqonayo, koofiyadii iyo surwaalku xidhan yahay. haddaan hoos wada dhaadhacana waad arkaysaa siduu noqday. marka inta badan ma wanaagsan in aad loo wada dhaadhaco. So around maybe -32, -25, -30 baan ku dayn doonaa. And whites same thing, waxbaa whites ku saad arkaysaan colorkiin buu kor u qaadayaa, badin maayo. So around 30 baan sagana ka dhigi karaa, the opposite of blacks. markaasaan deetana saturationka u tegaya. Saturationku haddaba waxa weeyaan hal shay baan iminka arkaya, geedaha ka dambeeya oo akhtarka ah, because wax kaloo color leh oon arkaya haba yaraatee ma jirta aan ahayn halkan intaa orange iyo casaanka ee kamarada, laakiin wax kaloon haba yaraatee aan arkaya ma jirto. So runtii waxaan samayn doonaa contrastkan doonaya inaan yar badiyo. So that means waxay soo celinaysaa aan rasiinnimadii bay ugu soo celinaysaa aan saad u arkaysaan. highlight ma doonaya inaan kordhiyo, because highlightka haddaan kordhiyo wuxuu kordhinayaa meelaha iftiinku ka soo gelayo ayuu badinayaa, iftiinkii ku badinayaa. meelahan oo kale ay ku yar tahay sida halkan oo kale runtii ku badin maayo iftiin, laakiin meelahay ku badinta ayuu aad ugu sii badinaya. So ma jecli inaad igu badato. So isaga laftarkiisa -30. shadow badan ma doonaya inaan u sameeyo, because look, the shadow aad u samayso macaween meelihii madoobaa bay sii madoobeynaysaa, meelihii caddaanada ma taabanayso shadowga. So the opposite of highlight iyo shadow waa isku opposite. highlightku waxa weeyaan meelaha iftiinku ka soo gelay maamaha iftiinku ku badan yahay ayay sii badinaysaa. shadowskuna waxa weeyaan meelahii shadowga ku badnaa mid madowga ku badnaa ayuu mid madowga ku sii badinaya. So haddaan -30 ka dhigay waxaan doonaya inaan opposite-ka asagana aan ka dhigo isku mid. So -30 isagana aan ka dhigo. So there I feel like intaasi horta in ay aad u wanaagsan tahay, oo at least haddaanan wax badan samayn inay colorkii uun soo yar celisay uun amba video yaro rasiin ay ka dhigtay. haddaan sii wado saturationka deetana markaa yar taabanaya. saturationku waxa weeyaan colorkii buu soo celinaysaa. So aad arkaysaan haddaan hoos u socdo black and white buu ka dhigi doonaa, haddaan kor u socdana colorkii buu soo wada celinaya. So ma jecli inuu aad u sii fogaado colorku. waxa wanaagsan in uu skinkiisa amba diirkiisu dee soo yar noqdo, at the same time akhdarkan ka dambeeya geeduhuna ay soo yar noqdaan, ay colorkii saxa kusoo noqdaan. So inta badan ma fiicna 150 inaad dhaafiso. wax intaa ka badan wuxuu aad buu u casaanayaa amba aad buu u yeelanayaa, color badan baa soo gelaya. So inta badan meelaha u fiican waa 120, 110, 130 meelaha inaad u dhaxayso. hadba waxay ku xiran tahay videoga aad gacanta ku hayso. So intaa markaan taabtay difference-ka waad arkaysaan immediately. That's the difference. markii hore saasay ahayd, imikana waa san. marka haddaan doonay inaan halkaa ku daayo, inkastoo aan ku qanacsanahay halkaasaan ku dayn karaa. haddii kale creative baan u tegayaa. deetna creative waxaan taabanaya intan hoose, ma taabanaya intan sare. I'm not gonna touch qoladan kale because waxa weeyaan haddii aad ka wahsatay inaad samayso kuwan baad dul saari kartaa, laakiin inta badan heli maysid videogaagii ku habboon, colorkii ku habboona inta badan heli maysid ilaa aad maaragtay dib u hagaajiso. marka intaan taabanaya waa intan, waa sharpness, vibrance iyo saturation. sharpness ma doonay inaan taabto, because sharpnessku wuxuu ka dhigayaa videogii yani aad buu the detail buu ka dhigayaa, si wanaagsan baa waxa loo arkaya, very sharp buu ka dhigaya. haddaan saa ka dhigana blur buu ka dhigayaa. ma doonaya labadaaba midkood inaan sameeyo. So zerogiisaan ku daynaya. markaste haddaad doonaysid inaad tagtay halkan aanad doonayn inaad soo celiso degdeg, 2 jeer baad taabanaysaa, in zero buu kusoo noqonaya. fiberska oo kale waxbaad ka bedeli kartaa. sugu saturationku waa isku mid, labaduba colorkii wax ka bedelaan. haddaan fiberska in yar kordhiyo, waa adiga arkaya siduu ka dhigayo iyo siduu ka dhigayo, waa adiga arkaya. marka fibersku ma fiicna in aad wax looga bedelo. So maybe 10, 11 meelahaasaan ku daynaya. saturation hor aan u taabtay, ma doonaya saturation badan in aan isagana wax ka bedelo. marka halkaasaan anigu aan rabaa inaan ku daayo. intan kale maanta u gudageli maayo, because colorga isaa wax looga bedelo skinka qofka colorkiisa. haddaan doonaya wheelkan inaan isticmaalo, isaga laftarkiisa waa kan. marka ma doonaya maanta inaan waxaasoo dhan u dhex galo curvekan laftarkiisa. maanta labadaas ma doonaya horta inaan taabto basic correction iyo basic color grading. labadaas ma doonaya maanta inaan ka hadlo. again videogani color badan male, laakiin dee xooga waxaan saaraya caddaanka iyo madowga marka koobaad. kalarada kale hadhow baan u samayn karaa. marka waxaan doonaya inaan tago horta meeshii ku habboonayd aan doonaya inaan hagaajiyo. markuu shaaha shubayo maybe here, halkaasaan doonaya inaan ka bilaabo. okay, so
haddaba markaan doonaya videoga inaan hagaajiyo waan idiin sheegay marka hore waxaan ku bilaabaynaa marka koobaad temperature. videoga waxaan doonaya inaan ka dhigo galab oo kale amba waxaan doonaya inaan huruud ka dhigo amba waxaan doonaya inaan caddeeyo marka dee qofkay ku xidhan tahay hadba waxaad doonayso. haddaad again waaniga idin lahaa u fiirsada lumetric scope-kan halkan yaalla akhtarkaa yari wuxuu sheegaya akhtarkaa yari ninka ka dambeeya laydhka yare halkaa ka dambeeya ayuu sheegaya because laydh yaro akhtara halkaa ku jira amba laydharka qabanaya gidaarka amba kaa aniga oo kale iga dambeeya waa akhtar marka saasoo kale weeyaan marka kaasoo kale waa akhtar marka again waxaan ogahay marka lumetric scope wuxuu iga caawinaya inta kalare meesha ku jirta ayuu horta ii sheegaya saad arkaysaan deemka waan arkaya akhtar buu yidhi casaan yar baa halkaa jira blue inta badan kuma jira buu leeyahay blue badan ma jiro laakiin casaan iyo akhtar baa ku jira bluegu koornaha yar buu ku jiraa so that means halkaa laydhka flaska ka dambeeya halkaa laga yaaba inay blue tahay laakiin markaan wadwado waan si wanaagsan baan dee u garan doonaa. so again haddaan soo wado waxaan ku badin maayo temperatureka waxaan doonayaa in uu noqdo maadaama caddaankii ma raba muhiimadda inaan kusoo celiyin weeyaan. so xabadda koobaad aan isku dayo waxa weeyaan inaan gaarsiiyo un meel aan isleeyahay caddaanka because maadaama caddaanku ku badan tahay halkan tissue ayaa la isticmaali karaa flaskan isticmaali karaa shaadhkiisa isticmaali karaa gidaarkan isticmaali karaa miiska bahashan duudiyaa la isticmaali karaa waxaasoo dhan ba waa caddaan marka anu waan ku qanacsanaya halkaa maybe -20 halkaa inaan ku daayo and then waxaan u tegayaa black waxaan doonaya isagana madowgii inaan yar hagaajiyo laakiin madowga laftirkiisa ma raba inaan ku badiyo marka saasoo kale haddaan ka dhigon ku daayo waxaad arki doontaa isbeddelkay samaynaysa iminka dambe la gareeyo saad u arkaysaan feska amba laskoortka u xidhan yahay ama ninkaa ka dambeeya suudhka u xidhan yahay amba shaarka u xidhan yahay suudh weeyaan waa adiga arkay siday madow u noqotay laakiin madowgaasi ma fiicna oo dee aad uma badna madowgaasi marka waxaa muhiima runtii in aan maybe haddaan ku daayaba okay bal labadaba waan eegi doonaa marka koobaad horta waan ku dayin doonaa madowgu in uu -100 noqdo so we'll see wuxuu ka bedelo aan videogan arki doonaa and then hadhow waan soo yar khafiifin doonaa bal hadda wuxuu iska bedelo this time white ma doonayo inaan taabto because waxaanan u taabanayn whiteka aanan ku bedelin waxa weye maadaama videogii marka horeba cadi yahayba there's no reason aan whiteka ku badiyo so waxaan ku daynayaa maybe 20 and then markaasaan u imanayaa waxaan qaybahan kale oo dhan marka haddaan qaybahan kale u imaado runtii exposureka laftirkiisa waxba ka taaban maayo exposureka waxa weeyaan wuu caddaynayaa aad buu caddaynayaa exposureka ma runtii waan ku qanacsanay exposureka siduu yahay ma raba inaan taabto so waxaan u iman doonaa contrastka horena waan uga soo hadalnay contrast aad iyo waxa ku fiican videoga markii hore waan ka yaraynay haddaanan qaldanayn may waan ku badinay markii hore iminkana waan ku badinaa because videoga waxa fiican contrastku inuu videogu contrast la yeesho and maybe around inaan ku badiyana ma fiicno runtii aan ku tarax tago maybe 70 ama 75 ayaan ku daynayaa and then you have highlight like aan horan ku sheegay highlightku haddaad ku badiso meelaha iftiin ku badantay ku badanaysaa meelaha ku yartayna way ku yaraynaysaa marka runtii highlightka inaan in yar kordhiya wanaagsan saga shadowga sagana aan opposite-ka ka dhigo okay so 27 so I would say -27 on the shadow and white-ka in yar baan ku yar kordhinayaa then iminka markaan halkaa ku daayo ayaan deetana bilaabaya inaan colorkii bilaabo amba color gradingkii wixii la odhanayay now saad u arkaysaan akhtarkan idiin sheegay waa kaa imika soo baxaya hareertan kalena waa kaa bluegi isaguna soo baxaya dhanka kalena laga yaaba inay casaan tahay so again 130 maybe 130 is ideal 130 baan ku daynaya haddaba aan tuso before and before waka afterna waka before after marka differenceka waa adiga arkaya intaa yari differenceka intaa leeg ee u samaysay haddaba haddaan hoos u sii socdo waan idin lahaa creative taga hoosta markaan tagno horta video waa sharp uma baahna videoga inaan aad u sii sharp ka sii dhigon sii habeeyo so halkiisaasaan ku daynaya laakiin waxaan doonayaa inaan fiberska isagana in yar ku daro marka eeg haddaan waa adiga arkay siday noqonaysa kalaradiiba aad u sii kala fogaanaya mar raba inaan kalarada sii kala fogeeyo so maybe 10 I think 10 baa ku filan saturationka saa in leeg isagana
ku badin maayo isaga laftirkiisa, maybe isagana waxa ku filan 110 ayaan ku daynaya. Okay, so haddaan bilowga ka soo bilaabo, as you can see waan idin lahaa halkaasi waa blue ama light blue weeyaan, akhtarkiina waa ka dambeeya. xitaa shaahi baa kalarkiisi uu soo noqday. haddaan idin tuso bilowgii, shaahi si wanaagsan looma arkay, ma cadays ba ama bigays. Actually bigays waad garanaysa, laakiin cadayskaas xitaa inuu cadays wanaagsan yahay kala dama kala garanaysid. laakiin imika as you can see shaaha macaan buu noqday, and there we go. waxa weeyaan banaanbax weeyaan. banaanbaxaasi wuxuu ka socday halka suuqa. dronekanna waxa weeyaan video dee laga duubay. marka runtii horta xabadda quran arkaya waxa weeyaan markaan videogan aan daawado, horta kalar badan videogu male. cadaankii madowgiisu waa iska caadi, inta badan aad uma baahna inaan taabto correctionka. laakiin xabaddan arkaya waxa weeyaan cirkii baa daruura leh. marka maadaamay daruuro tahay dee lama eka aniga in maanta aan wax badan ka bedeli karna halkaas. so xabaddan isku dayay waxa weeyaan marka koobaad horta temperatureka inaan yar taabto. like I said, I think xilligan xilli qabow ay ahayd, xilli dhaxan ay ahayd, so winter bay ahayd. so waxaan isku dayaa in aan maybe bluega imika yar badan, saad u arkaysaan halkaa bluega badan. waxaan isku dayay inaan dhankan u yar badiyo Lumetric scope haddaad eegtaan. and then markaan arka in ay wada leegyihiin kalaradu oon midba midka kale ka sarayn, ayaan deetana ku daynaya halkaa. imika saad u arkaysaan casaanka yar sareeya halkaa, waan soo yar celinaya haddana halka maybe barta maybe 7 ama 6 labada. I would say weliba 7 baan ku dayn halkaa. okay, so intaa yar difference-kay samaysay in badan dadku ma arkayaan, laakiin waxaad arkaysaa halkanaad ka daawanaysaa scope-kaasaad ka daawanaysaa. marka scope-kaas wuxuu ku tusayaa maanta markay kalaradu ay siman yihiin, casaankii, akhtarkii iyo bluegii markay siman yihiin, ama primary colorsku markay siman yihiin, ayay cadaankii soo baxaya ama madowgii soo baxaya. marka taas marka hore waynaad ku dadaashaa. so taa horta waan isla garanay, cadaankii waa cadaan, and then madowgii baan deetana yar hagaajinaya. ma doonayo halkaa aad arkaysaan maanta wada madow maaha, waa gidaar halkaasi. ma doonayo inaan aad u madoobeeyo, because haddaan madoobeeyo suu noqonayo adiga arkaya. so again 0 haddaan ka keeno, in yar baan rabaa inaan hoostuun gaadhsiiyo baan doonaya, halkaa 0 inaan gaadhsiiyo bas. so -1 bay 0 ku gaadhay. haddaan sii wado way sii dhaafaysaa, way sii xumaanaysaa, way sii madoobaanaysaa. waxaan doonaya markaa in aan at least -1 ama -2 aan ku daayo madowgaas. so halkaa aad arkaysaan scope-ka aad la soconaysaan. so intaasaan horta ku qancay anigu. again wixii ku xigeen markii sameynaya waxay ahayd white-kii inaan badino. white-ku markaa dee iftiinkii weeyaan umbaan badinaa, ama iftiinkii caddaanka ahaa umbaan badinaya. haddaan badiyo wax badan oo horta videogiis ka bedelay ma jirto. so again waan ku dayn karaa 100ka markaas, because meelo badan oo madmadooba buu aad u iftiimiyey. so halkaa waan ku dayn karaa. and then waxaa ku xigan doonaya inaan taabto waxa weeyaan shadows. videogani shadowyo badan buu leeyahay, because waa fooq dabaqyo dhaadheer weeyaan. dabaqyada hoostooda oo dhan waxay noqonayaan shadows aad u arkaysaan. markaa mana doonaya inaan taabto shadowga, waxaan doonaya horta in sidiisa ku daayo imika. highlight-ka ku xigay waan idiin sheegay, cirkaas aad u caddaan doona. okay, saad u arkaysaan samadiiba aad u caddaanaysa. ma raba inay aad u caddaato, waxaan doonaya horta inaan samadiina dee soo yar celiyo, dadku arkaan exactly waxay siday tahay samadu, ma buluug ama daruura ama maxayba. imika haddaan caddeeyo cidii arki mayso, laakiin waxaan doonaya inaan hoos u soo wada dhigo si ay dadku arkaan daruurtii. weli videogii si wanaagsan buu muuqdaa, waa la arkaya. and then that's where the contrast comes in. haddaba contrastkii baan markaa yaraynaya. markii hore waan badinaya, wixii videoyada hore aad arkaysan oo dhan waan badinaya, imika waan yaraynaya contrastka. sababtan u yaraynaya waxa weeyaan because halkana doonaya in ay wada iftiinto, ma raba in ay isku wada ekaato videogu. waan doonaya inay weli dee kala lahaato, midna shadow lahaato, midna highlight lahaato. laakiin waxaan doonaya inaan hoos u soo yar celiyo, maybe -20 ama 25 inaan ku daayo, siday dadku u arkaan meelaha babbanaan iyo laftirkooda amba hareerahan aad loo arko. exposure-ka ma doonayn runtii inaan taabto, ma doonayn inaan isku taabto. that's why saturation-ku baan haddaba taabanaya. this is where the color grading ay bilaabmaysa. marka color grading-ku haddaba wax badan uma baahna. saad u arkaysaan Lumetric scope-ka haddana ila eega halkan qaybtan kale. haddaan 0 ka dhigo oo adiga arkayaa in ay de halkii gu taagan tahay,
laakiin haddaan badiyo that means waxay caad ku tusaysaa siday yahay videogu dushaas sare imika waa caddaan laakiin buluug bay samadu yar xigtaa oo adiga arkaya buluuga halka sare dabaqyada dushooda sare intaas waa akhdar geeduhu waa akhdar intaasoo dhan waa akhdar marka akhdarkii baa deetana kusoo xiga casaanku deetana wuxuu noo sheegayaa meelahan kale ee shadowga iyo orangeka iyo meelahaas ayaa noqonaya deetana casaankii marka luminoscope wax kale ma qabtay wuxuu kuu kala sheegayaa videogii halkuu siduu kale yahay inuu kala sheegaya haddaan ku badiyo markaa eeg haddaan ku badiyo aad wuxuu u kala qaybiyey aad waxaad u kala arkaysaa buluugii akhdarkii iyo casaankii sidii uu u kala qaybiyeyna halkan aad ku arkaysaa casaanku casaan resina maaha laakiin waxa weeyaan orangeka halkan ka muuqda weeyaan haddaan soo celiyo se oka casaan badan ma yeelanayo because wuxuu isticmaalayaa laydharkan halkan ku xidhana orangeka ayuu u isticmaalaya so ku badin maayo I would say maybe 140 baan deetana ku daynaya that's why creativeka markaan taga haddana I'll do the same thing vibrance-kan tegaya ku badin maayo isaga laftirkiisa waanay horeyda ku sheegay vibrance-ka maybe waxaan ku daynayaa ilaa adu 50 meelahaas and then in yaro saturation oo kale ayaan rabaa in yar inaan ku daro waxba ku badin maayo isaga laftirkiisa so 115 okay so saad u arkaysaan imaka videoga wakaas haddaan ka baktiyo halkana laga baktiyaa oo waxaad ku tusaysaa aan videogu siduu ahaa markii hore iyo imaka siduu yahay haddaan soo dhaweeyo waa kan videogan isticmaalaynay okay haddaan ka baktiyo waa kaa videogu marka hore siduu ahaa imakana waa kaas markii hore imaka before after maanta waxaan baranay marka waxa weeyaan color correction marka koobaad horta color correction waa inaad samaysaa waa inaad hagaajisaa colorkaagii waad caddaan ku celisaa buluugaad ku celisaa caddaan ku celisaa madowgaad ku celisaa then markaasaad color correctionkii u imanaysa ood doonaysaa color correctionkii in aad markaa hagaajiso runtii marka saddexdaa video unbaan maanta tusaale ahaan dib kusoo qaadanayay insha allah barnaamijyada kale soo socda waxaan doonaya in videoyo kale iyo aan qaar kale oon aniguba duubay in aanu ka hadalno oon correct garayo oon habayno oon hagaajino